golaha waxqabadka ee deegaanka Buruc oo ka tirsan gobolka Bari ayaa magaaladaasi ka hirgeliyay mashaariic horumarineed oo iskaashi bulsho lagu hirgeliyay sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena Maxamed Siciid Qoslaaye. golaha waxqabadka Buruc oo ay ku midaysan yihiin bulshada deegaankaasi ee ku kala nool daafaha dunida ayaa ka miro dhaliyay qorshayaal lagu horumarinayo magaalada Buruc oo ka tirsan degmada Qandala ee gobolka Bari. mashruuca iftiimi Buruc ayaa si weyn looga dareemay magaalada kadib markii 30 solarka cadceedda ku shaqeeya laga taagay magaalada Buruc ee dhacda dhinaca bari ee magaalada Boosaaso. waxaana sidoo kale ballaarin lagu sameeyay dugsiga hoose dhexe ee Buruc School. Faysal Dahar Ciise iyo Cilmi Maxamuud Yaasiin oo ka tirsan guddiga sare ee golaha waxqabadka Buruc ayaa ka waramay marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen fulitaanka mashaariicdaasi. waxaa sharaf weyn oo ah horta inaan nagala soo qayb gashaaniin daafurka wajiga koowaad ee mashaariicda horumarineed ee deegaanka Buruc uu ka hirgeliyay ururka golaha waxqabadka Buruc. mashaariicdaas oo ah laba mashruuc oo iska rab socda oo ah ballaarinta iskuulka oo runtii ay ka muuqatay baahi badan saadaraadna lagu kordhiyay qaybo kamid ah iskuulka 2 qol iyo mashruuci kale oo ahaa iftiimi Buruc. bishii labaad 16keedii 2018 halkan aanu nimi ballanqaadiyadii aanu qaadnay ee ahaa labadii mashruuc ee ahaa iftiimi Buruc ama solar systemka iyo fidinta iskuulka Buruc oo aanu ku darnay 2 qol iyo 3 suuli iyo hal barkad oo golaha waxqabadka Buruc oo ballan qaaday inaynu galabta u fadhino fulintii la fuliyay daafurkeedii. aad bay farxad noogu tahay dhammaan anigoo ku hadlaya magaca golaha waxqabadka Buruc. qaar ka mid ah bulshada deegaanka Buruc ayaa u mahad celiyay ururka ay ku midaysan yihiin bulshada fulisay barnaamijka iftiimi Buruc iyo ballaarinta iskuulka. way iftiimiyeen magaalada hadday tahay iftiin xaqiiqi ah iyo mid macnawi ah labadaba. magaaladu waa iftiintay waxayna ku iftiintay deegaan magaranaysa dadaalkooda. anagu markaa waxa waajibkeenu yahay inaanu u mahad celino 100% waxaan kaloo waajibkeenu yahay inaan u duceyno ballaarinta dugsiga Buruc iyo iftiimi oo ah solar gelinta magaalada Buruc oo iftiimiyay oo maanta magaalada mugdiga ahayd ka dhigay magaalo maanta ifaysa oo solar ku jiro oo ifaysa oo nuuraysa ay noqotay. kulligeen dhalinyaro oo dhan intii wax noo qabatay oo dhan qadadkayaga dibadda iyo qurbaha kullu waa idinka haynaa. haddana wali waa idinka jecelahay wax qabad inaa wax noo sii qabataaneen. injineerka gacanta ku hayay taagida solarka Buruc Liibaan Siyaad Cali ayaa dhankiisa bulshada deegaanka kula dardaarmay inay ilaaliyaan solarka. in markasta odayaasha iyo guddiga waxbarashadu ay la daba taagnaadaan waxa la rabaa kan iyo kuwa ku yaala meelaha ay dhalinyaradu maartay ku caweyso ama wax ku akhristaan in sibir la daba taagnaado la ilaaliyo maalin kasta la jeekmo la hubiyo si aan waxyeelo inoo kaga iman. nabadoon Cali Yuusuf Maxamed Faatax iyo gudoomiyaha deegaanka Buruc Daad Ciise Maxamuud oo isaga dambeeyay hadalka soo xiritaanka kulanka daafurka mashaariicda horumarinta Buruc ayaa bogaadiyay shaqada la qabtay oo ku timi iskaashi bulsho. aad bay mahadsan yihiin mashruuca ay hadda ka fuliyeen deegaanka hadda koomaha horay bay gacanta ugu hayeen. haddana labada mashruuc waa laba mashruuc oo cusub oo hor leh waxtar weyn leh intii ka soo shaqeystay soo abaabushay iyo inta hadda gacanta ku haysta iyo inta hadda damacsanba waxaan leenahay waxa lagu gaaraa waa wax wada qabsi. haddaad aragtaan bulsho waxa way horu dhaqaaqday waa bulsho wada qabsatay. waxaan leenahay dhalinyarta runtii hawshan inoo fuliyay si degan si dareen leh oo degan oo didniba ku jirto ayay hawsha ma garanaysaa ay ugu dhaqaaqeen. aad baan uga mahad celinaynaa inay hawshaas hirgashona runtii golaha waxqabadka Buruc ayaa xiriiriyaha lahaa. iyagana waa la sheego golaha asaasayaashu waa habluhu waa laf dhabarta ma garanaysaa
bulshada dareenkooduna waa ku badan yahay. gabagabadii kulankaasi ayaa shahaadooyin la guddoonsiiyey qaar ka mid ah howlwadeenadii furitaanka mashaariicda golaha waxqabadka Buruc. Maxamed Siciid Qoslaaye, Puntland TV, Garowe.